asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha dhammaan meel kastoo dunida ka joogtaanba ramadaan mubaarak. allah subxaana watacaala ayaa mahad iskale oo markale hawada nagu kulmiyey. walaalaha ka qeyb qaatay maaragtay walaalka ama walaasha afuri waad ku mahadsantihiin. qarashaadkii walaalahana soo gaarsiiyeenba inkastoo dadka dhaqaalaha bixiyey oo wadanka dhashka u badan yahay, haddana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum. meeshaad ka soo saarteen bedel kheyr qaba allaha idinka siiya, awlaadiinii reeraha allaha idin xifdiya. ilaahay maaragtay fadligiisa iyo maaragtay rabbilcaalamiin wuxuu kitaabkiisa ku yiraahday allaha idinka dhigo kuwaas. allah wuxuu leeyahay ina aladiina yatluuna alkitaaba allahi allah wuxuu leeyahay ina aladiina yatluuna alkitaaba cafwan, kuwa kitaabka alle akhriyeen oo aqaamuu salaata salaada oogeen wa anfiquu bixiye mima rasaqnaakum waxaan ku arsaaqnay siran si dadban oo si hoose u bixiyeen wacalaaniyatan yarjuuna waxay raajadeen wax kale ma rajaynayaan tijaaratan lan tabuur. marka fadligaas badan oo ilaahay subxaana watacaala idin siin doonaa liyuwafiihim ujuurahum, ilaahay waan u dhammaystirinayo wayasiiduhum min fadlihi inahu qafuurun shakuur. fadligaas badan allah subxaana watacaala ku ballan qaaday qofka daraalla wax u bixiyaan maalinta weli loogu baahan yahay, loogu dhib badan yahay runtii oo alla yiri yaa ayuha aladiina aamanuu infiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaأtiya yowma laa beycun fiihi walaa qullah waalkaafiruuna hum aldaalimuun. marka qofka waa waqtiga loogu fadli badan yahay u bixiyey oo dadka duruufaha haystaan abaaraha ka jira wadanka waa la socotiin. runtii cailooyinka la quudiyey runtii lacagaha walaalaha bixinaya waa 25 lacag qofka ugu yar 25 euro ahayd, laakiin ilaahay subxaana watacaala agtiisa wax weyn bay ka taha runtii. allahna wuxuu yiraahday lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun. marka maadaama fadligaas badan ka qeyb qaadateen walaaladeyda, khayrka allah idin siiya. kolley aada walaalihii aada afuriseen, reeraha la afuriyena halkii reer uu ka kooban yahay 5 qoyskiiba uu yahay, runtii aada dareemi karto 6 qof 7 qof uu ka kooban yahay. waa fadli aada u weyn runtii. nebigana wuxuu yidhi qofkii qof sooman afuriya ajarkiisii mid lamid ayuu leh. marka idinkoo guryihiina iska jooga ayaa ajarkiini halkaas idinkugu imanaya. miisaanka xasanaatikiina aakhiro ayuu ilaahay subxaana watacaala idiin saaray. marka walaalaha waxaan leeyahay inaan la wadaagaan rabay fariimihii soo gaaray. dad badan baa wax soo duubay, cajaladay soo duubeen, waxaasoo dhan ma soo gudbi karna. waxawaaye waxaan dar allah loo bixiyey inaan walaalaha bes un aysan noqonin markii dadka wax laga qaadayo keliya in lasoo hor istaago oo aan feedback la bixinin oo dadkii dib loogu celin. iyadoo dar alla wax loo bixinayo haddana shaydaanka meeluhu dadka kasoo galay ka mid tahay. ilaahayna wuxuu leeyay in tubdu sadaqaatin fa nicmaa hiya, haddii sadaqadiina muujisaan waa allah subxaana watacaala, wain tukfuuha watu'tu lfuqaraaa fahuwa khayru lakum, haddaad qarisaan taasaa idin khayr badan. wayukafir cankum min sayi'aatikum, ilaahay subxaana watacaala wuxuu tirayaa oo idinka zuulinayaa xumaantii aada samayseen sayi-aadkiina. marka waa faa-iido badan waa waxaan aan dar alla u bixinayno. in sadaqada la muujiyo dadka lagu dhiirageliyana way bannaan tahay, kamaa nabiyu sala allahu calayhi wasalam waqtigiisa cusmaan ibnu cafaan maanta wax dhibayo ma gaarayo oo dhahayay in la muujiyo haddii dadkii maaragtay lagu baraarujiyo waa wax wanaagsan. wain tukfuuha watu'tu lfuqaraa, dadka dhibaataysan fuqarad. runtii kilibyada wadanka soomaaliya ka imaanaya ma la xamili kara, qaarkood ma daawan kartid duruufaha iyo dhibaatooyinka haysta. walaalo badan waxaa jira aan facebookgeyga la wadaagay iyo maaragtay whatsappkeygaba, wixii kheyrna soo gaara halkaasaan gelinaa. dadka inta badan dad baa sii sheergareeya. qofka hadduusan waxba bixin karin fadlan inuu dadka sii gaarsiiyo. ilaahay subxaana watacaala ajarkaas mid labada kusi. walaalahaas ku dheereyn maayo. hooyooyinay u badan yihiin caruur haysta.
rag dhalinyaraa ku jira oo akhyaar ah oo odayaal baa ku jiray runtii jazaakum allahu khayran meeshaad ka soo saarteen miisaan xasanaatikum allaha idiin saaro badel kheer qaba allah idin siiya owlaada iyo reeraha allah idinkugu xifdiya ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay rabbi alcaalamiin maalkiina iyo maaragtay allahuma baarik allah idin barakeeyo maalkiina inuu idin barakeeyo owlaadiina inuu idin barakeeyo caafimaadkiina idin barakeeyo guryihiina ilaahay maaragtay kurubaadkiina haysta idin ka qaado ayaa rabbi alcaalamiin weydiisanaynaa annagoo hadda ku jirnaa wiigii labaad ee ramadaanka ilaahayna waxaan ka baryaynaa allahuma balliqnaa leylatulqadar inuuna gaarsiiyo intaasaan kusoo koobaya walaalaha dhammaan jazaakum allahu khayran walaalihii kheyrka ka qeyb qaateen iyo kuwa dambe dib uga qeyb qaadan doono dabcan ciidiyaa soo socota walaal kastoo danaynaya inuu ciidda ka qeyb qaatana kolley waa sidii umaad uga qeyb qaadanaysaa ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay adduunyada sanadkan waa soo gaarnay sanad dambe inaan gaarayno allaha garanaya bal aynu u tartanno kheyrkeenu ka shaqayno wadankeena culeysyo badan baa jira abaaraha ka jira runtii waad la socotiin magaalada hargeysa culeysyada ka jira suuq weynaa inuu gubtay waxaasoo dhan iyadoo la ogyahay ayaa haddana waxawaaye ma quusanayno dadka soomaaliyeed dhibaato 30 sano ay ku jireen haddana niyadoodii iyo qalbigoodii waa dhisan yahay ilaahay qulubtooda u mideeyey qalbiyadooda iimaan ilaahay subxaana watacaala ka buuxiyey haddana waxa waaye maalin unba ilaahay subxaana watacaala uun culayskan ka qaadi doonaa dhammaanteena inuu khayrka isu kaashano wasala allahu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin سحب الشوق طيرنا كالغمام